أخسر كذلك ما يقولون يعني فرص بيبيت أنا أصير نحارس هاي هذه إنا أفكر أوجلست نفط isku dhajisid xogaa baashiyan ku qabatid naaska geeska ka soo qabatid waliga naaska marka naagta aad ka qabanaysid saas liskaga ma xafuujiyo saas loo qabtaa v amal naaska oo naagta u qabanaskeeda inuu inta galo waa v amal ina saas u qabatid labada gees ka soo qabatid saas korkor ugu diriigtid ibta qabatid saas dhag uga siisid gabadha markaas saas u samaysid indheeda waa tageenbo markaan muku oga qofka tahay waxa tahay naasaha tartiib uga soo dhudhuuqday naaska horta qabo waxba step by step way mugtahay qof walba waa qabanaysaa naaska ka qabanay horta ko markaasaan ku dhays ma aragtay xishooda ku jira wali bas uroonaysaa maaha inay ka cabsanayso markaas isku dhada abuuy wallaahi bilaahi ma xishoone adhiin بعدها متقنا حبيبتي عدك أقولك بارتي أنا بكالي وسا وحتى لنا بكالي والله أنا أقول ليها بكالي وسا معنا لكن هذه سايقة فوها يا بفاطة هبينكي أرسكير هذه هبينكي إيجوريس يقول ماركنا والله هبينكي إيجوريس هبينكي walaashay ninkeeda ayaa i damcay kadibna walaashay ninkeedii waxay ku samaysay soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ah waa anigoo ah baashaal doon haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir page-ka follow dheh muuqaalkana sii share garee mahadsanid caawa waxaan idiin wadaa qiso dhab ah oo dhacday waxaana iiga warantay gabartii ay ku dhacday haddaba i ag fadhida waxayna tidhi sidan waxaan ahaa gabar agoon ah aabo iyo hooyo toona maan lahayn waxaan la noolaa aniga walaashay iga weyn walaashay waxaa qabay nin oo waxay ahayd xaas mudo ayaanan la noolaa anigu intii hore waan yaraa dugsi ayaan dhiganayay balse hadda waan weynaaday oo naag qaangaadh ah ayaan noqday aadna waan u qurux batay xataa walaashay waan ka qurxoonaa